RFSU oo ku saabsan wareegga siilka. waxaa jira waxyaalo badan oo dadka ka aaminsan yahay fikradda. waa sheeko khayaali ah oo loogu talagalay in lagu xakameeyo dareenka galmada dumarka. jiritaanka aqoon-darrida xubnaha taranka dumarka ayaa sababay in sheekooyinkan khiyaaliga ah ay weli jiraan. ma jiro xuub qariya afka siilka kaasoo dilaaca marka ugu horreysa ee wax la geliyo siilka, iyadoo aanay run ahayn in markasta la dhiigo marka ugu horreysa ee la galmoodo. laakiin mararka qaar ayay dhacdaa in la dhiigo. maxay taasi sidaas u tahay? siilka iyo afka siil ayaa ah mid kala jiidma. afka siilka wuxuu uu ka kooban yahay laalaabka bikirka, kaas oo aan u naqaan wareegga siilka. wareegga siilka waxa uu kala baxaa marka wax la geliyo siilka, isagoo si aad u kala baxa marka la umulaya. laalaabka bikirka ayaa si kala duwan u ekaan karaa sida jirka intiisa kale u kala duwan yahay. waxa marmar dhacdaa inay dilaacdo mid ka mid ah laalaabka bikirka. markaas ayaa imaan karaa dhiig iyadoo iskeeda isaga bogsata. qaabka afka siilku isma bedelo. sababtaas awgeed ma ogaan kartid hadduu qof sameeyey galmo. qaar badan ayaa ka walwalsan inay xanuun badan tahay marka ugu horreeya ee galmo la sameeyo. sida loogu raaxaysto galmada waxaa loo baahan yahay dareenkaaga galmada kacsan yahay, isla markaana ay jirto rabitaan galmo. markaas ayuu siilka noqonayaa mid qoyan oo bararsan. haddii aad giigsan tahay oo aanad rabin inaad galmo samayso, markaas ayay dildilaaci kartaa, taasoo keeni karta xanuun iyo dhiigbax. wax macno ah ma samayso haddii ay tahay marka ugu horreyso, marka labaad ama markii boqolaad ee galmo la sameeyo. marka la koro ee la soo galo baaluqa ayuu afka siilku sii weynaanayaa, uuna noqdaa mid kala jiidmi kara. siilka muuqaalkiisa wuu isbedelaa marka da'da korodho, wuxuuna noqon karaa mid aan si weyn u kala jiidmi karin marka la weynaado. marka ay ku qabsato dhibaato ku saabsan xuubka siilka oo qalalaya, ama aad dareento xanuun marka aad samaynayso galmo, ka doono caawinaad umulisada ama dhakhtarka. xasuusnow inay jiraan sheekooyin badan oo khiyaaliya oo ku saabsan galmada. jidhkaaga dhagayso oo tala ka raadso umuliso ama dhakhtarka.